qodobka saddexaad walaalayaal wuxuu yahay waxaa maqlayseen in la joojiyey qaadkii muddo kooban ama dhowr iyo 20 cisho ah bishii ramadaanna way soo gashay waxaynu leenahay dadka balwada lahaa ee lagu imtixaanay inay jaadka iyo balwadaha kale isticmaalaan bisha ramadaan ha ka dhigtaan fursad ay iskaga daayaan oo balwada ay kaga waantoomaan hana ogaadaan 12 saacadood ee maalintii sida ay u sooman yihiin ay u afxidhan yihiin ee ay waxyaabihii soomka jabinayay oo dhan ay uga fogaanayaan ee ay uga afxidhan yihiin ay isaga daynayaan shaadka iyo balwadahana inay isaga dayn karaan oo naftooda ay xakamayn karaan ha ogaadaan waxaynu leenahay bisha ramadaan ee soo gashay iyo qaadka la joojiyey waa laba fursadood oo isbarkan oo ay tahay dadka balwadahaasi ku imtixaanaa inay ka faa'iideystaan ilaahayna waxaynu weydiisanaynaa jaadkaasi inaanu inaguba soo celin dadkii ka shaqayn jiray ee biilka ka raadsan jirayna walaalayaal waxa la gudboon inay ilaahay baryaan oo iyaga qudhoodu ilaahay daraadii ay uga tagaan qofkii ilaahay daraadii uga taga ee ilaahay barya arsaaq xalaalo weydiista shaki kuma jira ilaahay inaanu qadinahayn ilaahay ma qadinayo waayo jaadka cunistiisa iyo ka ganacsigiisu waa muxaram qofku hadduu niyad wanaagsan la yimaado ilaahay uu baryo oo uu arsaaq xalaalo weydiisto oo ilaahay dartii uu xaaraanta uga tago ilaahay miyuu qadinayaa wallaahi ilaahay inaanu qadinahayn wax ka wanaagsan buu ilaahay jalla wacalaa ugu bedelayaa dadkii haddaba wax ka soo saari jiray wax ka dayi jirayna taasi ayaynu walaalayaal kula talinaynaa ilaahayna waxaynu weydiisanaynaa aafaadka iyo sharka inuu ina gees mariyo waxaan walaalayaal ku khatimayaa waa ogtihiin masaajidda laynagama xidhina waa kuwa inoo furan bishii ramadaanna waynu ku cibaadaysanaynaa laakiin mar haddii xanuun uu jiro khatari xoogay tartiibaadka in lagu dadaalaa waa lagama maarmaan horaynu dhowr jeer uga hadalay kolkaa waxaa laydinku baraarujinayaa awal hore bisha ramadaan ee marka salaadaha laga baxo masaajidkaynu yaro jiifsan jiray oo labada dabaqba way buuxsami jireen laakiin waxa maamulka masaajidku uu soo jeediyey iyo masaajida kaleba in dadku ay meheradahooda iyo guryahooda iyo meelahaasi ay kolka horeba ka yimaadeen ay ku qayluleystaan oo ay iska yar jiifsadaan oo marka aynu cibaadaysano waxa weeyaan marka aynu meelaheennii kala qabanno oo insha allahu tacaala tartiibtaasi aynu qaadanno ilaahay khayrka iyo wanaagga hayna waafajiyo dembigeenna ilaahay ha dhaafo اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ونعوذ بك من سيء الأسقام اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه